Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal kulanti wanaagsan iyo sidoo kale Jumca wanaagsan. Mar kale waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka arrimaha Kenya. Dabcan nooga barateen Jumca walba saacadahan. Waxaad toos nooga daawanaysiin xarunteena magaalada Nairobi. Barnaamijkan arrimaha Kenya ayaan waxaan ku soo qaadanaa waxyaabaha ugu waaweyn oo dalka ka taagan markii loo fiiriyo arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha saameynta ku leh bulshada ku dhaqan gudaha dalkani Kenya. Waxaad moodaa waxyaabo badan ayaa haatan ka oogan dalkan markii loo fiiriyo isku dhac ku aadan habka iyo qaabka loo fasiro constitutionka mise dastuurka dalka iyo maaragtay sidoo kale sidee loo fasiraa iyo waxaa laga yaabaa qaadi hebel inuu sidan u fasiro, waxaa laga yaabaa xeer ilaaliyaha guud inuu sidaas u fasiro. Marka taasi ayaa waxaad moodaa in ay sababtay wadanka in uu hadirtan wajahan yahay waxaa lagu tilmaamo khalkhal dastuuri ah mise constitutional crisis. Dabcan arrintan ayaa waxay salka ku haysaa maalin dhaweed markii qaadiga sare dalkani David Maraga uu madaxweynaha dalka kula taliyay in uu baarlamaanka kala tuuro iyo waxyaabihii ka dambeeyay arrintaasi. Iyo sidoo kale waxaan ku soo qaadanaynaa madaxweyne Uhuru Kenyatta mar uu saxaafadda wareysi la yeeshay isagoo ku sugan ilaa haatan magaalada Paris ee dalka France wuxuu arrintaasi ka sheegay. Dhinaca kalena haddii aan fiirino markii loo fiiriyo arrimaha siyaasadda waxaad moodaa in xaaladda guud ee siyaasadda dalkani iyo maaragtay siyaasiyiinta iyo hadallada ay isdhaafsanayn ayaa waxaad moodaa doorashada 2022 inay berito dhacayso. Waxaad moodaa in maaragtay si fiican aan iraahde safety ayaa galka laga saaray. haddii aad fiirisid dhinaca ku-xigeenka madaxweynaha iyo dadka ama siyaasiyiinta isaga xulafada u ah dhinaca madaxweynaha, marka waxaad moodaa arrinta in ay jahwareer weyn ay abuurtay. dabcan arrimaha Kenya inta badan waxaan ku soo dhaweynaa dadka maaragtay aqoon u leh siyaasadda dalkani iyo sidoo kale arrinta xilligaas taagan. waxaa studioga wehel igu ah subaxan Cabdiqaadir Looya oo ah nin garyaqaan maamus iyo magac ku leh magaalada Nairobi iyo sidoo kale gobolka Soomaaliyeed ee waqooyi bari Kenya oo haatan soo ahaan jiray afhayeenka baarlamaanka countiga Mandera. dabcan sidoo kale hami weyn oo siyaasadeedna uu leeyahay. Cabdiqaadir ku soo dhawo mar kale RTN TV. waad mahadsantahay Cabdi. Assalaamu alaykum. wa alaykum salaam. haddii horta intaanan weli gudagalin ama intaanan weli Cabdiqaadir usoo jeedsanin ayaa waxaan ka codsanayaa Maxamuud in uu noo soo saaro wargeyska The Standard shaashada inuu noo soo saaro wargeyska The Standard ayaa subaxan waxaad moodaa horta toddobaadkan haddii aad fiirisid wargeyska The Standard headlineskiisa marba toddobaadkan gudihiisa ayaa waxaa lagu soo qoray Ruto in a frenzy, yani Ruto oo markhaamay siyaasad ahaan siyaasadda dalka ayuu ku markhaamay. haddana maalin dhaweed isagoo gaari gacan saaran ayaa waxaa la dhahay Ruto goes wild oo ninkii maaragtay wuu waashay yani siyaasad ahaan ama siyaasaddu ku waashay. marka waxaad moodaa haddana headline-ka maanta ayaa wuxuu dhigayaa madaxweynaha dalka Paris buu ku maqan yahay xilli uu Ruto go'aansaday in uu xafiiska oo maaragtay ama xarunta xisbiga Jubilee oo loo yaqaano maaragtay Jubilee House ku yaalo Pangani ayuu shalay ilaa 10 saac iyo bar oo galabnimo ayuu halkaasi ku sugnaa isagoo maaragtay watay qaar kamida siyaasiyiinta xisbiga Jubilee, senators iyo sidoo kale maaragtay MPs. waxaana leeyahay waa markii ugu yaraan markii afraad yani 2 toddobaad gudaheeda uu ku noqonayo xarunta dhexe ee Jubilee. Cabdiqaadir, Kenyaanka waxay aad iyo aad u xasuustaan in toddobaadyadii aan soo dhaafnay ama bilooyinkii aan soo dhaafnay waxaad moodaa xisbiga Jubilee iyo maaragtay xubnaha kala duwan in dadkii ama siyaasiyiintii garabka u ahaa ku-xigeenka madaxweynaha kulligood xilalkoodii ayaa laga xayuubay. bimacnaa waxaad moodaa maaragtay controlkii dhan oo xisbiga ayaa farahiisa ka baxay. dhinaca kale haddii aad fiirisid baarlamaanka waa tii aadan bare meesha laga qaaday, waa tii maaragtay Kipchumba Murkomen aqalka sare laga qaaday. marka su-aasha meesha ku jirta ayaa waxay tahay
xalay dhan waxaad moodaa baraha bulshada ay ku kulmaan kenyaanka ha noqoto barta twitterka facebooka qaar baa waxay dhaheen ama af sawaaxiligii methaaligii af sawaaxiligii ahaa paka kiondoka panya hutawala yani bisada markay baxdo waxay mukula maaragtay dooliga ayaa meesha maamula su-aasha meesha ku jirtaa waxay tahay muxuu ula sugay in madaxweynaha uu dalka ka baxo uu maaragtay headquarters ka soo fariisto William Ruto waad mahadsan tahay cabdi horta William Ruto nin hadda dowladda banaanka ka jooga ma aha William Ruto waa nin madaxweyne ku xigeen ah xogaha joornaalada iyo midiyaga ayaa xogaha buuq aan jirin meesha wada oo dadweynaha wareerinaya ma ogi wax buuq oo meesha ka jira ma jirto Ruto iyo madaxweynaha dowladda isla soo dhiseen Jubilee ayaga isla soo dhisay in maanta masashali in uu tago Jubilee wax dhib oo ka jira ma jiro waxa dhibka keena ay waxay tahay xogaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka xogaha way kala fogaadeen si fiican inkastoo 5 sano madaxweynaha markuu soo galay uu Ruto caawi oo isla socdeen oo xataa uu public uu ka yiri madaxweynaha uu ka yiri 5 sano anaa ku jiro 10 sano anaa ku jiro 10 sano Ruto baa soo galay annagu taas baan ognahay wixii isbedelay mise Ruto looga tagayna dadweynaha looma sheegin dadweynaha aniga iyo adiga dadkoo dhan wax noola sheegay ma jirto laakiin siyaasadan un mar walba ku macnaha ku salaysan qabiil iyo been iyo backstabbing macnaha isdabargoyn ku saabsan wax meel tagay ma marka wax buuqon arka ma jirta madaxweynaha haduu baxay asaga maanta madaxweynaha ka wadankan madaxweynaha waa bili aadan haday wax kasta ku dhacaan bari subax asaga noqonaya madaxweyne hal party bay ku wada jiraan way isla soo dhiseen Jubilee way isla soo dhiseen markii la kala tagay oo Raila uu madaxweynaha ay u soo tageen xogaha meesha way wada qaadi weeyay saddexda way isla qaadi weeyay inuu nin baxay noqotay xogaha waxaad moodaa ninkan madaxweyne ku xigeenka in banaanka loo bixiyay laakiin anigu taas lafteeda wax dhibaatoon u arka ma jirto minority wadankan hadaan ku nahay siyaasadda markay dadka competition-ku u badan yahay la kala qaybsan yahay markaas ay annaka faa'iido noo tahay hadaan fahmi karno maanta warka ugu xun oo la soo sheegi kara waxay tahay dadka minority-ga annaka warka ugu xun oo la soo sheegi kara waxay tahay saddexda nin way heshiyeen warkii waa dhamaaday raggan hadda magaalada dhex ordaayo baatiga rabtaba ku jiro moodaya macnaha inay maanta qaaliyiin waxa qaali ka dhigaya dadka maanta horta moodaya anigu hal dhinac oo siyaaso oo harta ku jira ma jirto nin waxaan ahay dhaxda taagan si fiican laakiin siyaasadda Northeastern haddaad fiiriso iyo Soomaalida waxa maanta loo raba ayaka masal telefoonada looga qabanayo masana loo soo dhaweynayo competition baa jira ninkan hadduu meesha ka baxo waxa game-kan la ciyaarayo oo dhan oo wada waa asaga maanta hadduu isdhiibo game-ku waa dhamaaday horta fiiri Cabdiqaadir waan u imaanaynaa midda maaragtay North Eastern iyo sida maaragtay arrintan siyaasadda dalka u saameyn doonto waxaad moodaa dadka qaar baa waxay isweydiinayaan okay Jubilee House waan iska agmari jirnay Pangani ayuu ku yaala Thika Road dadka Garissa socdo Garissa aadayo Mandera yani agta hadartan waa maxaa yani Jubilee House muxuu hadartan muhiimad u yeeshay soo agrtama iyo sidoo kale waxaad moodaa maaragtay in ku xigeenka madaxweynaha iyo dadka isaga la halmaalo waxay leeyihiin may election baan rabnaa doorasho inaan maaragtay la qabto ayaan rabnaa marka waxaad tiri adiga dhinacna uma janjartid laakiin lawlaa maanta haddii doorasho lagu dhawaaqi lahaa gudaha maaragtay xisbiga Jubilee saadaashaadu maxay tahay saadaasheedu macnaha yani natiijada ka soo bixi lahayd halkaas ma waxa laga yaabaa Ruto inuu maaragtay ama dadka isaga taageero inay ku guuleysan lahaayeen ama cad weyn inay qaadan lahaayeen mise dhinaca madaxweynaha doorasho oo macnaha oo general election hadaad ka wada macnaha horta hadda way caddahay madaxweynaha iyo inay kala tageen may waxaan ka wada gudaha xisbiga Jubilee aad ulama socdo laakiin waxaan aaminsanahay maadaama maamulka kore laga haysta madaxweyne ku xigeenka
powerkana madaxweynaha dhinaciisa uu ku badan yahay Ah. hadday doorasho dhacdo waxaan aaminsanahay in Jubilee inay madaxweynaha iyo dadka la socda inay qaadan doonaan okay Aha. marka taasi ay haddana su-aal kala meesha ka dhalanaysa dabcan siyaasadda Kenya cabaara la socota 2013 mar baad issharaxday 2017 iyo sidoo kale maxaa sabab u ah shantii sanaba ama aan iraahde 10kii sanaba markii uu madaxweyne baxayo xisbiga uu madaxweynaha ku soo galay in uu burburo haddii aan xasuusano maaragtay naak baa jiri jiray oo Kibaki uu ku soo galay naak waa burburay xitaa markii dambe PNU ayuu ku soo galay madaxweynaha ma taasi ma waxay ka turjumaysaa garyaqaan baa tahay taasi ma waxay ka turjumaysaa shacabka Kenyaanka ama siyaasiyiinta Kenyaanka uma bislo party manifesto kaliya waxay u bisil yihiin yaa magac wata oo xisbigaas ka soo jeeda miya wadanka systemka hadda adduun weynaha badana uu ku dhaqan yahay waa democracy okay wadankan democracy-ga waa lagu sheegaa laakiin laguma dhaqmo okay wadan madaxweyne iyo ku-xigeen iyo siyaasi kaliya ma wado wadamada siyaasiga kaliya ay wadaan waa kan aan hadda joogna camal okay wadamada kale oo institutionska micnaha gacanta micnaha maxkamadda noqota institutions badana jiro si fiican wadamada institutionska ay wadaan oo xoogan waa markab badda dhex socda camal haddii markabka inaad leexiso aad rabto waqti dheer bay kugu qaadanay midda yaroo hadda wadankan iyo madaxweynayaasha hal qof iyo laba qof iyo siyaasiga ay wadaan waa biskili camal ayagaa wada dadka dhan baa saaran hadday ibsaaq u leecdaan saas baa loo wada dhaca hadday inta aadaan intaa loo wada dhaca marka dhibka waxaa keenay hal iyo laba qof oo shakhsi baa wadanka dhanba wado hadday intuu boodaan wadanka dhan baa intuu wada booday haddii inta loo dhaca intaa loo wada dhaca marka dhibku wuxuu ka jiraa siyaasadda wadanka waxay ku salaysan tahay qabiil been iyo isdabargooyn bay ku socotaa marka khalalaas kama baxay weligiis okay okay marka cabdiqaadir looya waxaad moodaa in hadeertan saan maaragtay barnaamijka markaan bilaabeynay in waxaad moodaa berri dambe doorasho inay dalkan ka dhacayso 2 sano ayaa ka dhiman 2 sano xilli aad iyo aad u dheer weeyaan waxaad moodaa maaragtay waxaad tiri ma garanaysid sababta ay u kala guureen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa taasi waa run just like the way cid maanta garanayso oo Raila iyo madaxweynaha waxay ku heshiiyeen xugma leh malaha ku dhe waxaad moodaa ku-xigeenka madaxweynaha oo duu jabsaday wuxuu hadeertan dalkani ku abuuraya fikrad ah dadka wax haysto iyo dadka aan wax haysanin dadka danta yar iyo dadka maaragtay muruqaha waaweyn leh taasi oo xitaa sababtay in si uu dadka u soo kasbado gaari gacan ayuu intuu ku fariistay ayaa maaragtay saas loogu waday soo gartay ma siyaasadda balaayo weeye waayo waxaan xasuustaa hadeertan ololo siyaasadeed baa Tanzania ka socda maalin dhaweed Magufuli wuxuu gaaray heer inuu jilbaha dhulka dhigto uu yiraahdo naombeni kurazenu marka haddii aad fiirisid the wheelbarrow politics miyay kula tahay in uu meelmarsiin karo William Ruto hadduu meelmariyona natiijadu maxay noqon doontaa horta wadankan siyaasaddiisa waxay ku salaysan tahay qabiil qabiil weyn baa qabiil kale raadsanaya madaxweyne ayaa la noqonaya marka dadka kale wax dan kale ma leh hadda xogaha waxaad moodaa siyaasadda inay isbedeli rabto midda hadda aad sheegtay dadka wax haysta iyo dadkaan waxba haysanin waxay ka fiican tahay wixii qabiilka la isku dooranayo yaa wax haysta yaana waxba haysanin dadku waa la isku jira qabiilo badan oo wax haystaa jiro qabiilo badan oo waxba haysanin baa jira dadkaan wax haysanin qabiil kastaa ku jiro marka siyaasadda lafteeda noocaas loo dhigayo siyaasad xun ma haddii la isla soo baxo oo dadweynaha la tuso maxaa idiin dan ah waa wax fiican laakiin ninka siyaasiga mar walba wixii dantiisa ayuu u ordaa jilbaha dhulka ha dhigto gaari gacan ha wado wuxuu raba ha sameeyo laakiin ninka inuu go-aan ka gaara la rabo uu maskax fiican leeyahay la rabo waa dadweynaha waa aniga adiga dadka qariban oo horta inaan loo nixinna u baahan waa dadweynaha
dadka maalin walba qabiil raaca mise mar sheeko yar loo sheegaba meel ku orda waa dadweynaha. dadka dambiilayaasha waa dadweynaha. ninkan gaari gacan buu la ordaa, wax buu sheegaya. adiga marka hindhasarcaad meel lagu sameynaa, adiga maxaad u baahan tahay? wixii adiga ku qancin karo oo aad dhihi karto ninkan baa ila macquula inaad raacdaa la rabaa. electionada qaarkood madaxweyneyaasha la dooranayo, ani mar waxaa jirtay maada karuwa ee madaxweyne u taagneed aan madaxweyne ugu riday. sababtana waan kuu sheega. markay hadasho waxay samayso qof macquul bay u egtay oo principle leh. qolaa waxay ku leeyihiin codkii waad lumisay. ma lumin codkayga meel fiican buu ku dhacay. meesh qofkii aan u maleynayay inuu wax tari karo aan codka siiyey. laakiin ninka codkiisa u lumay waxaa waaye nin iska raacay oo meel iskaga riday buu codkiisa lumay. marka sheekadan hadda dadka wax haystay iyo dadka waxba haysanin ah, nin baa siyaasa ku wato, hadduu soo galana wuxuu noqon doonaa wax og male. nimanka kale waxay wadaan BBI waxa soo socdo waxay tahay wax og male. laakiin ugu dambaysta go-aanka waxa iska leh haddii ay ogaan karaan dadweynaha iska leh. marka aan ka dhaxgalo Cabdiqaadir, waxaad ka dhawaajisay ninkan gaari gacan buu wataa, laakiin berri ka maalin hadduu guriga madaxtooyada la wareego wuxuu noqon doonaa cid og ma laha. marka taasi miyay ka turjumaysaa in waxyaabo badan ee qabiye yihiin ay weli noqon doonto in qofka lagu dooranayo shaqsinimadiisa ma aha wax manifesto uu wato? sababtoo hadduu qofka manifesto uu wato, hadduu qofka hadaf uu wato, hadduu qofka maaragtay polisigiisa uu cad yahay, xitaa berito guriga madaxtooyada markuu la wareego waad ogaan doontaa jihadu qaadi doonto. saas ma aha? waa saas. okay. waa sidaan kuu sheegay. haddii hal qof wadanka uu wado meel fog lama tagayo. okay. laakiin waxaa loo baahan yahay checks and balances baa loogu tiragalay. si fiican. baarlamaan baa la sameeyey. madaxweynaha hadduu qaldan yahay, waxyaalo qaldan hadduu sameynayo, baarlamaanka la rabaa inay dhahaan waad qaldan tahay, ma samayn kartid arrintan. haddii arrin kaloo qaldan baarlamaanka ay sameeyaan, maxkamadda la rabaa inay dhahdo waad qaldantiin, ma samaynayso. mid walba midka kale inuu qabtaa looga tiragalay. laakiin haddii qoladii baarlamaanka joogtay mase qoladii maxkamadda joogtay haddii wax dad nafle ayna ahayn, ayna waxba qaban karin, wax laga qaban kara male. madaxweynaha hadduu ogyahay hadduu wax qaldan samayn rabo in la qaban karo, markii horeba ma samaynay, hadduu samayna waaba la qaban karaa. marka dadweynaha la rabaa inay aada ugu fiirsadaan. waxaana waa wax dhar oo isku taxan. madaxweynaha keliya ma ah, wadanka ma wado. baarlamaan baa jira. waxaad soo dooranaysaa nin ku matalo oo baarlamaanka gala. sanad baad soo dooranaysaa. waxaanoo dhan waxay ka qayb qaadanayaan wadanka hogaamintiisa iyo meeshuu ku socdo. dadka lasoo doorto hadda baarlamaanka ku jiro mase senataska ahna dadweynaha ayakaa la rabaa inay u caqli celiyaan mase wax u sheegaan. laakiin haddii ayakaba ay waxba fahansaneen, waxay wax u sheegi karaan male, ayakaa dadka meel xun ku hogaaminaya. Cabdiqaadir Looy, haddii aad fiirisid narrative-ka hadirtan ama sheekadan uu wado oo maaragtay sheekada Wilbaro, yani gaari gacanka, dabcan koley gaari gacanka aniga aragti ahaan William Ruto wuxuu ka soo qaatay in ay tahay nolosha meesha ugu hooseyso oo qof maaragtay muruqiisa ku maali karo uu wax ku raadsan karo. marka waxaad moodaa dad qaar baa cabsi bay muujinayeen hadirtan. bilmathala haddii aan maaragtay example ahaan isu barbar dhigo, dabcan dalka Tanzania waa tagtay oo Tanzania waxaad moodaa xilligii Mwalimu Nyerere uu madaxweyne ka ahaa, wadan shuuci buu ahaa, wadan maaragtay hanti wadaag buu ahaa. marka waxaad moodaa hadafka hanti wadaaga iyo shuucinimada iyo Nyerere siduu wax maaragtay u maareyn jiray ayaa waxay ku abuurtay shacabka aan waxba haysanin ama danta yar inay nacaan dadka gawaarida waaweyn wato. that's why xitaa maanta jidadka Arusha haddii ama maaragtay Dar es Salaam, Morogoro, haddii baabuur yar iyo baabuur maaragtay SUV haddii isku dhacaan, shacabka inta badan waxay ku soo cararaan ay ku qayliyaan ninka gaariga weyn oo gaariga qaaliga wato, eego haddana leha xoolaheena la dhacay weeyaan. marka arinta hadirtan aad moodid dadka siyaasadda dalkani indheeyo ayaa waxay leeyihiin sheekada hadirtan William Ruto uu wado waxaa laga yaabaa labadan sano fooda nagu soo hayo ka hor doorashada intaysan dhicin inay waxoogaa jihadeeda intuu qaloocmo ay sheekadu abuurto naceeb u dhaxeeyo dadka Kileleshwa ku nool iyo dadka Korogocho ku nool. fikradaadu maxay tahay? cabdi, fikradeyda waxay tahay wadankan wax isjeclaan ma jirin horta.
runta haddii laga hadlo wax isjecelba si fiican ma jirto okay xataa soomaalida ka soo qaba okay diin muslim bay haystaan oo la leeyahay ninka walaalka ninka muslimka waa walaalka si fiican waa inaadna jeclaato okay dadkii muslimiinta ahaa oo diintooda ay saa ahayd ayaa maanta isjeclayn si fiican oo dhibaato iyo nacayb xun isdhex yaala marka qolo gaalo ah na wax laga sheekay maba wax laga sheega ma laha okay marka wadankan wax isjecel ma jirta waa la ogyahay qabiil baa loo kala socdaa dan unbaa dadki isku haysa ma ogi wax isjecel ma jirto meeshana wadan ma yaalo meeshan waxaa yaalo qabiilo badan oo isku imaaday oo qabiil walba maxaa ii dan ah qabiilka kale ii soo qabo aan meeshan isla qabsano aan saa u soconnaa socoto hadda sanadka maalin hore wixii ka socday waxay ahayd lacag sida loo qaybin lahaa aad iyo aad qabiilooyinka waaweyneed waxay dhaheen dadkan yaryaroo lacagaha badan qaadanaya laga soo celiyo madaxweynaha kamuu hadlin xag ku ka istaagay marka meeshan dowlad baa lagu magacaabaa saa mar hore kuu sheegay iyo wadan laakiin meeshan wadan ma jiro madaxweynaha intuu tv-ga soo fariisto uu ku hadlayaa isagoo meel public joogu ku hadlaya afkiisu ku hadlaya marka adiguna waxaad leedahay waa madaxweynahaagi tv baad ka fiirinaysaa wuxuu ku hadlayana kama warhaysid marka xogaha horta sidaad sheegtay amay nacayb abuurtaa nacayb wadanka wax ku yar male waxaana keenaya siyaasadda xun oo qabiilka ah siyaasadda xun oo micnaha beenta ah iyo waxaasoo dhan ninkii gaal ah wax dhibaato ah ma laha isaga gaalnimadiisaaba waxa dhanba u samaynaysa laakiin ninkii isle aniga muslim baan ahay oo diintina haysta intana diintii micnaha garabka ku wato dhaqankiisana uu nooc kale yahay waa dhibaato marka way abuuri kartaa sanadka soo socda 2 sano soo socoto wadankan wax ka dhici kara ilaahay waxaan hayna kuu sheegi kara ma jirto lamana qiyaasi karo